halkan waxaa ka bilaabatay maxkamadeynta rag loo haystay dilka Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon dilkaas oo ka dhacay howlwadaag January 22 sanadkan labada dhinac ee dacwadda ayaa bilowga garmaqalka dood iyo difaac ka kala galay qodobada ee xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyeen 8 sane oo mid maqanaha yahay waa kan abukaata Cabdullaahi Macallin Muxudiin Dudaye oo duraya qodobada eeda waafaqsanay qodobada 25 26 24 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya oo gungaarka uu ka soo baxay inay u arkeen arintan inay shil aheeday inuu maxkamadda horteeda ka qaray dawo ku mahadsan yahay sharcigu waxaan rabaa waan garanay baaritaanka hore iyo gungaarka hore wuxuu waafaqsanay qodobka 26 in eedda la waafajihayo baaritaankaasna waxa sheega qodobka 7aad waa waxaan hadda ka doodayo in dhibanayaashu haday soo cabtaan lala fadhiisto dhibanayaasha ee waxay rabaan loo sameeyo sharciga meelna uga ma qoro sharciga hal meel oo ay ugu cadahay ma jirto in inta dhibanayaana loo yimiday saas noo sameeyay yiraahdeen asal loo sameeyay meel sharciga ugu qoran tahay ma jirto gudiga ayagoo madax bannaan oo si sax wax u baaray oo maxaan iraahdaa xur ah yay waxay la noqotay arintan inay shil tahay waana xaqiiqada rasmiga ah anagu aan ku doodayno gudigana asaa kamida ninka ugu koobaada saxiixay waa xafiiska xeer ilaaliyaha guud qaranka hadda waa ninka koobaada saxiix waa la isku khilaafo sida sharcigu uu sheegay qodobka 13aad xeerka habka ciqaabta xafiiska xeer ilaaliyaha waa madaxa ugu sareeya ee baarista marka boolisku wax baarayo jihaynta asaa iska lahay awaamirta asaa iska lahay laakiin markaas xurow ahay si iskiisoo wax u baaray laakiin markaan dambo soo sheegayaba cabashada dadka dhibanayaasha warkoodu yeelay laakiin xeer ilaaliye General Cabdullaahi Buule Kame ayaa ku adkaystay in eedeysanayaasha ay si wada jir ah u galeen dambiga sida uu qabo hal shakhsi kamida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halka inta la geeyay gacanka ku hadal la yiri markii baawurku soo dhaafo oo soo sheegay maahane inta kale rasaas bay rideen hawlgalkii qayb bay ka ahaayeen halka shakhsina maxkamadda markii maraga ay dhageysto doodeena dambe ayaan rabnaa inaan ku cadayno dhammaan inta kale halka eed waa ka sameeyeen waxa ku soo haray 71 waata midda 434 ay ku eedayn 445 markii hore kiiska guddi baa loo saaray guddigii baaristoodii markay soo gabagabeeyeen waxay ula muuqatay seedana guddi wax markii la yiraahdo baarista hadii hal qof uu yahay ninka go'aankiisu qaadanaya baariseed laakiin guddi markii la waa la kala qaybsamaa ra'yiga aragtida waa lagu kala qaybsamaya waxana khasab aqoolada dhinaca loo badan yahay in la raaco waxa la yiraahdaa wadarta dooda go'aanka aqlabiyada la yiraahdo guddi marka la yiraahdo sidaa darteed guddigii hore waxay isla garteen u go'aamiyeen in dilkan 445 uu yahay dil kama uu yahay oo ku talagal u sanahayn mar labaad ayaa guddiga la kordhiyay cabashay ka keeneen eheladii marxuumku cabashadaas darteed ayaa guddigii la kordhiyay 5 xubnood laga dhigay 3 bay ahaayeen dib u baaris bay sameeyeen guddigana maxkamad khaatiyal ku qoreen sidoo arkay garsoorku maxkamadda hor imaan doonaan maxdarka labaad waa la dhageysan doonaa iyagana sababta ay nin walba u daliishanayo maxdarkii labaad ay guddigii labaad ayaa waxa ka soo baxday aragti ah in dilkaani ka siiyay marka la fiiriyay shuru arrimo badan isjiid la xiriira xagga qodobada ah kadib maxkamadda ayaa amartay in hore looga dhaqaaqo waxayna xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida keenan marage ay ka mid yihiin taliyihii qaybta waliyo cadde oo hadda ah taliyaha degmada Hodan gaashaan Bashiir Cabdi Siyaad iyo taliyihii Waabari gaashaan Maxamed Cabduqaadir Nuur Mooshin sidoo kale waxa la dhageystay marage kale oo ay ku jiraan ilaaladii gudoomiyihii degmada Hodan oo iyana dhaawacay ay ka soo gaareen dhacdadaasi taliyihii qaybta waliyo cadde gaashaan Bashiir ayaa isaga u sheegay garsoorka inaanu goobjoog u ahayn wixii dhacay laakiin dhacdada kadib uu yimid kadib xiriir oo ka helay goobta aniga waa baxay waxaan tagay saldhiga howlwadaag waxaan u tagay Shucayb oo diyaarsan shaqadiisii howlgalkiisa u diyaarsan oo la joogo taliyaha Waabari waxaan ku yiri qaabkee rabtaa in shaqadan loo wado
oo xogta adayda iyo macluumaadka see ku soo baxayaan meel kasta waa xiran tahay Shucayb wuxuu yiri xiriirka aan hayo horena waa uu soo qabtay gaadiidkaas haddana waa ay soo socdaan okay aniga waxaan iri marka waxaan wacay taliyaha saldhigga Hodan si operation guud oo noqdo Shucayb uu soo booday wuxuu yiri taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaan yaan ku wada dhafrin shaqadaasna anaa qabanaya sidaas ayuu operationkii hawshii uu ku galay بعدين waxa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyay in baawur oo xabadeeyay rasaas isku fureen بعدين gaarigii oo gadaal u baxay riifis oo gashaday waxaan ku yiri wax khasaara ma jiraan wuxuu yiri kama faahfaahin karo wax khasaara waa soo baxay meel dhax intaan soo maray wadana mar labaad igu soo celiyay wuxuu yiri waa gudoomiyada degmada Hodan maxaa gaaran ku yiri igama uusan jawaabin sidii ayaan goobtii ku imid waxaan la kulmay ka bacdi dhimashada gudoomiyihii dhaawaca dadka anagu soo horeeyay darawalkii u waday gudoomiyaha gaariga ayaa ay aqoonsaday meelayran oo soo mara ayadoo qoray la igu haayo waliba staafkii yar hadda maqan oo la yiraahdo Carab aqoray ugu qabtay wuxuu waa taliye Bashiir ka daa qoriga sidii ayaan ku imid waxaan xaqiijiyay gudoomiyihii dhimashadiisa dhaawacoodii aan aruuriyay ka bacdina tilaabada iga gudbooneed saraakiishii aan u yeeray waxaan ku yiri nin walba staafka uu wato qoryaha ka qaado saldhigana wada xareeyay gaashaale maxamed cabduqaadir nuur mooshin taliyihii degmada Waaberi oo isna habeenkaasi goobjoog u ahaa dhacdada ayaan tilmaamin bilowga wixii dhacay cidii iska lahayd mas'uuliyadooda laakiin isagu uu ka jawaabayay wicitaano kale oo la xiriira howlaha amniga degmadiisa oo xilligaasi ay ka socdeen dhac loo geysanayay dadka kooxa burcadan ay geysanayeen laba askari ay hartay taleefanadii ku hadlaayo askartii ila joogto baahan mar waxa ka war helay gaari break gaari iyo xabadii markay dhaceen oo aan xabadii dhaceen oo soo degay askarta kamida labada askari oo joogto mid kamida wuxuu ugu yiri taliye joog ha dhaqaaqin aniga dhar caadi ah watay sida habeenkaas dhar caadi ah watay taliye ha dhaqaaqin joog meesha joog mooto guduudan oo meesha luuqa aan ku jiray horteeda iga muuqata waxa ku dhacay dadkii wada aaway waxba ku dhacay markii dambe oo aan soo baxnay oo saas aan soo baxnay waxa noo maaday nin askari bishaar oo noo maxbadi markay dhaceen oo luuq aan saas uga soo baxay bishaar noo maaday oo yiri gaariga waxa wato gudoomiyihii Hodan aawato dhaawaca jiro hal qaad Shucayb Cabdi Maxamed oo ahaa taliyihii degmada Howlwadaag waa isku duwaha iyo ka jawaabida xog kamid ah howlihii loo wakiishay maalmahaasi waxay booliiska gobolka Banaadir ka jawaabayeen howlgal kaasi oo daarnaa ka hortagida jaadka magaalada ka soo gala xeebaha balse aan soo marin hubinta nidaamka ay ugu talagashay dawladda sida ay sheegeen qareenada iyo taliyayaasha marag ahaan u joogay maxkamadda taliye Shucayb waxa uu jeedkiisu ahaa ka hortagida jaadkaasi oo dawladdu diiday laakiin dhacdadaasi ay ku dhacday filawa qareenada u doodayay sanayaasha ayaa sidoo kale su'aalo weydiiyay maragga ay ka mid yihiin darawalka iyo ilaaladii gudoomiyihii degmada Hodan oo iyagaba aan qiyaasi karin sida ay u dhaceen habeenkaasi xabadii markii lagu bilaabay xabadii koow aan ay u dhacday gaariga waan ka dhacay aniga gaariga markaan ka dhacay gaarigii darawalka gadaal u la baxay aniga meeshii aan ku dhacay hal xab ayaa igu taala markaas qorigii oo aniga faniinay ayaan raadsaday waa soo qabsaday nimankii xabadeynayay actor ayaan ku dhacay marka dhowr baalot ayaan ku riday xabadeyna nagu weydeen intaas markaan dhowr baalot ku riday ayaan waxaan arkay dharka booliiska inay dariis booliis qabaan waxaan xabadii aan ka daayay waxaan ku dhahay war askaraan nahay booliisaan nahay war waa gudoomiyihii war waa saas ayaan ku dhahay markaan saas ku dhahay waxay igu jawaabeen xabadda naga dhaaf ayaan igu jawaabay hadalkiisa aan gaartay xilligaas waan ka dhaafay aan ku dhahay intaan saas dhaaya ayaa xabad kale igu dhacday gadaal iga dhacday wax igu dhiftay maana fahmin marka uu ii imaadeen qoriga ay iga qaateen hore ii dhaafeen intaas ayaan xasuustaa aniga xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in fursad loo siiyo maragyo kale oo muhiim u ah kiiska sharaxaadda qaybta cilmi baarista dembiyada ee forensic dhageysiga guddiga baarayaasha kiiskan waxa uuna maxkamadda ka codsaday
jenaraal cabdulaahi buule kamey in la siiyo wakhti kale uu ku soo dhammaystiro dhammaan qaybahaasi oo muhiim u ah kiiska marxuum Dhagajuun. maxkamadda ayaa aqbashay dalabka xeer ilaalinta sida uu ku soo xiray fadhigan gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida in dacwada mar kale la isugu soo laabto oo dib loo dhigo sidaa darteed garmaqalka dhanka ka ahaa 7 eedeysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedeysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynayo hada uma santi Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.